Excellency Macky Sall, President of Republic of Senegal and incoming Chairperson of African Union, His Excellency Flex Tshisekedi, President of Democratic Republic of Congo and Chairperson of African Union, His Excellency Moussa Faki Mohammed, Chairperson of African Union Commission, Honorable Heads of States and Governments, distinguished guests, ladies and gentlemen. May I begin by expressing my sincere appreciation to the African Union and the government of Ethiopia in making this 35th ordinary session possible. mudane Macky Sall madaxweynaha dalka Senegal ahna gudoomiyaha cusub ee midowga Afrika ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Ethiopia mudane Dr. Abiy Ahmed mudane Moussa Faki Mohammed gudoomiyaha midowga Afrika madaxda sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin aan ku bilaabay inaan uga mahadceliyo midowga Afrika iyo dawladda Ethiopia suurtagelinta meertada 35aad ee shir madaxeedka midowga Afrika iyadoo ay weli taagan tahay hubinti la'aanta iyo qataraha ka dhashay xanuunka COVID-19 waxa kale oo aan aad ugu mahadnaqayaa dawladda Ethiopia sida quruxda badan ee ay noo soo dhaweysay aniga iyo wafdigayga mudanayaal iyo marwooyin waxaan jeclahay inaan soo dhaweeyo warbixinta golaha nabadda iyo amnigu ay u soo gudbiyeen golaha midowga Afrika taasi oo tibaaxaysa in qataraha argagixisada iyo xagjirnimada rabshadaha wadata ay si xawliya isaga gudubtay xuduudaha qaaradeena iyadoo ay uga sii dartay deegaanada qaarkood oo aan maamul dawli ah ka jirin iyo jawaabaha caajiska iyo abaabul la'aantu ku dheehan tahay ee laga bixinayo Soomaaliya waxa ay muddo 10 sano ah dhibana u ahayd argagixisada iyo xagjiriin balse xilligan Soomaaliya waxa ay la soo baxday waay aragnimo la taaban karo oo ay ka baratay wiiqida kooxaha argagixisada ah taasi oo hoos u dhigtay awoodii howlgallada ururka Al-Shabaab yaraysayna weeraradii ay ka geysan jireen gudaha Soomaaliya and with record low level attacks recorded across Somalia. Al-Shabaab's squeeze in Somalia has had a ballooning effect to the rest of Africa. They have become more sophisticated. joogitaanka maleeshiyada Al-Shabaab ee Soomaaliya waxa ay saameyn ballaaran ku yeelatay Afrika inteeda kale waxa ay noqdeen kuwo aad u abaabulan waxa ay qaaradda oo dhan ka sameysteen shabakado maaliyadeed oo adag waxa ayna la soo bixeen galaangal ay ku doonayaan inay iskaashi iyo xiriir kula yeeshaan kooxaha argagixisa ah sidaan marar badan ka dignay qatarta Al-Shabaab ma ahan mid ku kooban Soomaaliya oo kaliya balse waa mid halis ku ah Afrika oo dhan warbixinta golaha nabadda iyo ammaanku waa inay noqoto mid guud ahaan dabooleysa saameynta Al-Shabaab ee qaaradda oo dhan si aynu si wada jir u abaabulno loona qorsheeyo howlgallo midaysan oo aynu kaga hortagayno qataraha inooga imaanaya argagixisada iyo kooxaha xagjirka ah mudanayaal horumarada aynu ka gaarayno dadaalada lagu xaqiijinayo dhabaha nabad ku soo dabaalida Soomaaliya ee sanadahan inagoo taageero ka helayna walaalaheena Afrikaanka ah oo aynu ku amaanayno nafurkooda waxa ay ka dhigan tahay in Soomaaliya ay hadda soo gaartay iftiinka xasiloonida iyo nabadda annagoo si buuxda ula wareegi doona mas'uuliyadda amniga qaran ugu dambeyn bisha Diseembar ee sanadka 2023 iyadoo lagu waday in waajibka shaqo ee howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya uu dhamaado bisha Maarso ee sanadkan 2022 dawladda federaalka Soomaaliya iyo midowga Afrika ayaa bishii Janaayo ee sanadkan waxa ay gaareen heshiis qeexan oo ku saabsan halbeegyada iyo ujeedooyinka istiraatiijiyadeed ee hagaya waajibaadka shaqo ee howlgalka cusub qorshaha gabagabeynta howlgalka iyo qorshaha bixitaanka ciidamada iyada oo la raacayo hagitaanada iyo jihaynta dawladda federaalka Soomaaliya dawladda federaalka Soomaaliya iyo waaxda siyaasadda nabadda iyo amniga ee midowga Afrika waxa ay wada jir ugu heshiiyeen 22 Janaayo sanadkan 2022 in howlgalka cusub loogu yeero howlgalka ku meel gaarka ah ee midowga Afrika ee Soomaaliya ATMIS Soomaaliya iyo midowga Afrika waa inay dhamaadka bishan ay golaha nabadda iyo amniga horgeeyaan dukumeentiyada howlgalka cusub ee ku meel gaarka ah
ee midowda Afrika ee Soomaaliya. Mudanayaal, Soomaaliya waxaa saameyn ba'an ku reebay isbeddelka cimilada adduunka. mana ahan mid Soomaaliya kaligeed ay wax ka qaban karto maadaama isbeddelka cimiladu aanu ahayn wax ku kooban xuduud iyo gobol gaar ah. isbeddelka cimiladu waxa uu horseed u yahay khataro badan, waxaana bishii Diseembar ee sanadkii la soo dhaafay Muqdisho aan ka furnayn laanta la socodka cimilada iyo ilaalinta deegaanka ee ururka midowda Afrika si ay dalalka ku buhoobay urur goboleedkani ay uga taageerto la socodka iyo ka jawaabidda isbeddelada cimilada iyo deegaanka. iyada oo laga duulayo halku dhiga sanadkan ee shirka ee ah xoojinta nafaqaynta iyo haqabtirka cuntada ee qaaradeena. isbeddelka cimiladu waa mid ka mid ah arrimaha saldhigga u ah sababaha keena nafaqa darrada. si horumar wax ku ool looga gaaro horumarinta bulshada iyo dhaqaalaha, gaar ahaan ajendaha midowda Afrika ee sanadka 2063, waa inaanu si wada jir uga hortagnaa isbeddelka cimilada iyo khataraha la xiriira. sidaas daraaddeed, mudanayaal, waxaan soo dhaweynayaa warmurtiyeedkii oo golaha nabadda iyo ammaanku ku ansixiyay shirkii 151 ee midowda Afrika ee qabsoomay bishii November sanadkii 2021, kaasi oo ku baaqaya in la sameeyo sanduuqa isbeddelka cimilada iyo xoojinta awoodda midowda Afrika iyo dalalka xubnaha ka ah. waad ku mahadsantihiin dhageysigiina. Thank you for your attention.